waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal waaxdii u dambaysay qarnigii 19aad ayaa soomaalida iyo dhulkeeda lagu soo duulay shisheeye dhowra ayaa inta saanyaday kala qaybsaday oo kala suntaday markaas baa qayb walba waxaa loogu abtiliyey qoladii saamiga u heshay dhulka soomaalida ee faransiiska dhulka soomaalida ee talyaaniga dhulka soomaalida ee ingiriiska iyo dhulka soomaalida ee xabashida sabanxumaagaas ka hor soomaalidu ma kala qoqobnayn oo inkastoo dowlad qura hoosteed aysan ku midaysnayn haddana waa iska warqabtay isdhexmarkeedu ma koobnayn weligeedna way ogeyd dadyawa kale ee geeska afrika ku dhaqan inay isaga sokayso taasna waxaad ku garataa gumaysiga ka hor doonyaha hindigu markay berbere badeecada ay sidaan ku rogaan ayay ganacsatada soomaaliduna inta awr ku raraan miyiga meelaha ugu fog geyn jireen iyaga oo ku soo bedelanaya waxyaabaha magaalooyinka looga baahan yahay sidaas oo kale waxaa iyaduna jirtay waddo ganacsi oo inta harar ka soo baxda magaalada luuq soo geli jirtay halkaasoo haddana marar badan ay safruhu baraawe iyo badweynta hindiya uga sii gudbi jireen noloshaas xorta ahi markay calowday oo dhulkii sidaas ahaa ay gumaystayaashu soodimaha u kala samaysteen soomaalidu ma qaayibina waa ka dhiidhiday mar ay dhiidhigaas addin ku muujiso iyo af iyo aftahannimo mar intay adeegsato ay isku guubaabiso ba' wixii uu gumaysigu badayna ay isku dareensiiso inkastoo aan naari meel qabow lahayn haddana xoogagii gumaysigu soomaalida waa u kala dabacsanaayeen markii la isbarbar dhigana waxaa ugu naxariis daraa xabashida oo waayadaas boqor mililikh kii labaad uu u talin jiray taariikhda dhowi siday xusaysana 1848 ilaa 85 baarliin shirkii ay ku qabsadeen iyo heshiiskii ka soo baxay ee reer yurub ay afrika ku qaybsadeen ayaa boqor mililikh ka saami qaatay isaga oo loo oggolaaday inuu hantiyo in weyn oo ka mid ah galbeedka dhulka soomaalida maalintaas buu askartiisii soomaalida ku fasaxay markaas bay ku markadeen dil iyo xadhig dhac iyo cadaadis maalinla ah intaba boqor mililikh wuxuu haddiiba reer miyigii soomaalida ku soo rogay cashuur silloon oo dhowr jaad ah marka hore waxay ahayd cashuur aan tiro go'an lahayn marka xigana cashuur aan xoolaha nooli u kala socnayn oo mar ay geel ku qaataan mar kale ay lo' ku qaataan mar saddexaadna ay ari ku qaataan waxay kaloo ahayd cashuur nooceeda lala amankaago oo xubnaha qoyska qof looga qaado isla markaasna aan rasiid lahayn cashuur aan iyada oo kale cidina u soo joogin oo neefkii kolba suuqa loo soo safarsadaa uu askariga iyo soomaaligii keensaday kala bar u ahaa taas yaabkeeduna wuxuu malaha kaa ba'ayaa markaad ogaato in talisyadii askartaa laga soo dili jiray iyo dhulkii ay ka howlgelayeen ay aad u kala fogaayeen sidaas awgeedna mushaarkoodu soomaalida ayuu dusha ka saaraa iyada oo si walboo ay kaga heli kareen ay u bannaanayd haddiise boqorka iyo askartiisa ay waxyaalo badani u bannaanaayeen soomaalidii reer miyiga ahayd hal wax oo keliya ayaa u bannaanaa intay carari karaan inay cararaan oo qura ayaa u furayd maxaa yeelay hub iyo saanad ay wax isaga rabaan laguma ogeyn inay helaanna looma oggolayn kolkaas bay meeshii ay askartaasi ka soo dhowaataba 5 geedi ka guureen kana fogaadeen iyaga oo baqlaha fuushan waddooyinkii ay soo mari jireen sida la wariyana degmooyinkii qaar baaba si kama dambays ah askartaas ugu daldaayey ugana hayaamay ka awow ceeshii ay xoolaha ka sugan jireen iyo carshintii ay daaqsan jireenba iyada oo
xariirtaas lagu sugan yahay oo waagu hadduu dilaaco in la nagaan doono iyo in la geediyi doono aan cidina sheegi karin ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa banka jigjiga ku kulmay wadaad gabyaa ahaayo oo maxamed guure la oran jiray iyo nin magaciisa cabdi lagu sheegay daraartaasna kabaha u ilanaa sadanadii hobyood ee mudug inuu u sadcaalo hilaadda waa horaantii 1912 sadanadaas oo xarunteedu ay magaalada ahaydna waxaa markaa ka taliya suldaan cali keenadiid oo mar aan fogeyn geeridii aabbihii kadib isagu kursigii talada salka dhigay aw maxamed guure ayaa kolkaa waxaa ku soo dhacday in suldaanka uu qayladhaan u sii dhiibo isaga oo ay la ahayd inuu u soo heelin karo wuxuu u malaynayay inuu u soo diri karo ciidan soomaaliyeed oo askartaas halka iyo hoyaadka u diiday dalkooda uga saara dhulsaraadkii ay ka yimaadeen inay ku noqdaanna ku dirqiya maalintaas buu wadaadku tiriyey gabay fariimee tiiraanyo miirana oo laga ogaan karo jeefaafili'idii boqor meelekh iyo ciidankiisii ay soomaalida kula dhaqmi jireen ee ay nolosha ugu dacadeeyeen aw maxamed oo cabdi ku halqabsanaya ayaa tixda ku bilaabaya arar gaabanoo salaan suldaan uu ugu talagalay dabadeedna wuxuu kowkabinayaa hadday yihiin galbeedka soomaalida degta hoogga ay ciidamada boqorku ku falaan wuxuu yidhi cabdiyow carrawdaye haddii aadan calooliyoobin caafimaad qab nololeed haddaad cali suldaan gaadho calaykum assalaam bay ku tiri culimmadiinnii dheh dabadeedna caadbaxoo u sheeg caawasaan nahay ee dadkeennii galbeed calowgelyo cadowgii loo heerdheh anna ciidan doonkii rag iyo ceelal yaan ahay dheh gaalada caweertale wixii calaftiyaan hayno cajab iyo siyaab loo xunbay uga cashuurtaa dheh caantay ninkii iibsadaa caanad buu bixin dheh ciroolaha da'oobay iyo dhashaan caday la leefsiinin codcodadii caanaha nuweel uga cabbaynaa dheh calool looma siiyee dirqay nagu cabiidsheen dhehbu wixii uu gumaysigu geyeysiiyey isaga oo sii faahfaahinaya ayuu oo maxamed guure wuxuu xusayaa foolxumooyin markaa ka hor aan soomaalida la maqashiin karin haatanse lagu dirqiyey sida dumarkooda oo markay doonaan ay askartu guryahooda u kaxaysata iyo khamriga oo ay dusha ugu qaadaan intuu ku xejiyo qaxa joogtada ah ee ay ku jiraan iyo ciidan la'aanta lagu haadsanayo ayuu suldaanka ku beerdulucsanayaa inuu ka baqaayo kollay addoonnimo qaatee in diinta islaamka laga saaro tu kalena la oggolaysiiyo wuxuu kaloo suldaanka ku wargelinayaa in gumaadka iyo cadaadiska askarta meelekh ay kordheen kadib markii sayid maxamed uu jigjiga qabsaday isaga oo u tafaxaynaa markaas xoraynta imaaraddii islaamiga ahayd ee harar wuxuu yidhi ictibaar adduunniman arkoo caajisaan nahay dhee casho noolba naagahayagay cududda haystaan dhee cajiinkaan u kadhinnaa kolkay calalis doonaan dheh nabiid ay cabbaan iyo khamraan cunuqda saaraa dheh carradii ilaah waascashay nagu ciriiriyeen dheh carar baan ahayn meesha iyo ciiddii ramadaan dheh caskar xoog la niman waayey oo cil qabaan nahay dheh cooflaha sidiisaan sharciga uga cabsoonnaa dheh cabiid qaadannay ee waxaan ka baqay inaan cagsoonnaa dheh annagoo calaacali asii weliba ceegaagna oo caarinoo ladanuhuu caliyey sheekhii dheh dabadeedna ciribteed go'dooy nama caqiibayn dheh cidaaday ka yeeleen waxay cagili taabeen dheh mooggana col bay gelinhayeen caymadkii haray dheh haddaad caaqibayn reer tolkaa cabay suldaankii dheh waa la hubaa in cabdigabaygaas uu suldaan cali u mariyey ha yeeshee codsigii uu xambaarsanaa ma uu fulin iskumana uu dayin maxaa yeelay rag iyo hub uu qolo kale ku gargaaraa gacantiisa kuma ay jirin banka jigjiga iyo hobyana dhul dhan baa u dhexeeya dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo